waayahay magacaygu waa shiine axmed bin culay bayd warsangeli aala daarood waxaan ahay nin caan dhalaya waxaan ahay nin waayo araga waxaan ahay nin aqoon-yahana oo waxbartay waxaan ahay inkastoo shiina baahane meelaha dadka u kacsana iga dhahaan nin alla wax siiyey oo guri barwaaqa ah oo ladan ka soo jeeda bankigiisuna maanta uu maal la ceegaago tagadaas waxaan isugu soo taagay kadib markaan arkay daarood beeshii daarood oo madmadow badan soo kala dhex galay taasoo aan u sababaynayo bacdamaa daarood uu qabiil ka tegey ee uu qaran marayo qowmiyad uu marayo aakhir sabaan lagu jiro daarood majority 99% waa dad wanaagsan waa dad edeb leh waa dad dhaqan leh waa dad kaxshooda waa dad kala dameeya waa dad meesha joogaan ku amaanan waa dad iyaguna is urursada ummadda Soomaaliyeedna afkooda iyo adinkooda ay ka nabad gasho waa dad soo talin jiray oo madaxa laakiin aakhir sabaana lagu jiraa waagi dambe waxa bilaabatay hadii ku wanaagsan oo daarooda ay meel taagan yihiin hal qof oo xun baa ka cod dheereeya Soomaaliduna waagi dambe waxa xun baa la wadwadaa aniguna dhowr jeer baan ku celiyo waxaan iri war waxa wanaagsan baa la isku metelaa waxa xun la isku metelo marka daarood oo aan ogahay inay yihiin 22 milyan qowmiyad sharaf leh madmadowga soo kala dhex galay ay u badan tahay aakhir sabaanka tiknoolajiyada timi dadkii oo sinmay qof walba meeg iska qabsanayo wuxuu rabo ku hadlayo maartay xaaladihii oo aan u jeedo beeshii daarood inay jaxjaxeen iyadoo beelaha kala lamida waxaan go'aansaday jagadaas inaan isu soo taago anigoo aaminsan inaan beesha daarood midayn karo anigoo aaminsan inaan horumarkeeda ka shaqayn karo anigoo aaminsan inaan waxay xaq u leeyihiin nin kartile oo u soo dhicin kara ahay waxa iyaga xaq loogu leeyahayna nin cadaali aan ahay aan dadka uga qaadi karo dadka waa midaynaya waxaan ahay nin daarood u siman yahay oo beelaha daarood jifa kasta ee tahay aan kala xigsan aysan kala xigin waxaan aaminsanahay haddii jagada la ii doorto beesha daarood inaan magaceeda iyo milgaheeda meel sare geyn doono waxaan aaminsanahay oo ballan qaadaya midnimada beesha daarood inaan ka shaqayn doono waxaan halka ka ballan qaadaya inaan beesha isu soo dumi doono isla markaasna beesha waxa weeye dhibaatada ugu badan waxay ka haysataa cayumanaas nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ummadayda cudurka ugu badan oo dili doona waa ilwey muxsin hadda waa xanuunsan yahay waxyaaba aan filayo oo aan u badinayo waa meesha hadalkiisa codkiisa halaasiga leh baa loo qoori waayay meelaha kana laga raacaysaan isla yahay weeye wax qabadka ugu horeeya oo aan qabanaya waxa weeye inaan siyaaro weyn alla bariya quraan akhrisa beesha loogu duceeyo aan ku qaban doono insha Allah ta'ala haylan oo ah halka awowheen xaaji Ismaaciil bin Jabardi daarood uu ku aasan yahay siyaarada ugu horeysa quraan bisha usbuuca anoo aan doornayn baan siyaarada qaban doona TV-yada dhan waa laga sii deyn doona insha Allah ta'ala 200 oo wadaad oo ay ka mid yihiin xirtii goori fadhiday oo maxaan ku raahdaayay ma sha Allah ahayd ilmo maxaad rabiici ku jiraan wadaadadii waaweynaa ummadda Soomaaliyeed caanka ka ahaa baan isugu keeni doonaa waa wax insha Allah ta'ala waa wax qabadka ugu horeeya aan qaban doono sidoo kale madmadowga beesha ku kala dhex jira walaalaheen beesha daarood hadday jifo tahay hadday laba tahay magaca daarood waxaan wuxuu leeyahay milgihiisaan muujinayaa waxaan meel walba ka muujinayaa daarood magaca dadku inay u baahan yihiin shiina culay baa u baahan jifidiisa u baahan sida ugu baahanahay jifideedu ugu baahan tahay be jifi kasta oo daarooda ay daarood ugu baahan tahay daaroodnimadu cidna uma baahna daaroodnimadu waa geed hal weyn oo la harsado ninkii geedka weyn jiridiisa ka dhaqaaqa saadiq muudgal deesantahay siyaasadda iga dad dagaalshaasheedka iga daatay muudgalde codkayga igu soo noqonaya dad kuma maqleen ku soo qorayaan saadiq doorsho cadaalad ha noqoto muudgal saadiq hadda muxsin u sheegay inuu muudgalo daniko ay foodeynayaan saadiq muud salma gelin kartaa umaleynaya taabsi
سيدا شو رأينا صادق إنه موت كتير هذا الأركان محاكم ضمرك ما هو كجرا هادو قال بقر هادو قال marka bilaal wuxuu inoo la joogaa madaxweynihii Soomaaliyeed way waa ku joogta caalamiga ku joogto way marka qaramada midoob ka dhigan yahay Antonio Guterres matalaya marka ilaahay kuma sabadiide halka ay kala yaacay saadaq intaas uga dalaa xuduudeeda macaan uu arkay inuu kala dadal rabay marka daaroodnimadu waa geed weyn oo harle cidii jisida geedka fariisan weyda iyadu ka duda ka dhaqaaqda cidlo baabahal iyo cadow iyo cagaceed maartay ay ku cunayaan marka magaca daarood another level aan ka dhigeynaa horena xidiguhu u joogay cid walba waxaan tusaynaa magaca inay u baahan tahay cidii iyadu banaan u cararta cagaceed iyo cadow inuu helayo muuqan doonta daaroodnimadu waa la bilayaa horena waa u bilayd magac barwaaqa weeye waxa weeye geed cid walba ku soo hirato bay ahayd tiibasi ahaan doonta insha Allah taala ninna lagu bari maayo laakiin magaca weyn geedka har kale loo dhashay maanta cid kasta oo Soomaaliyeed jeceshahay inay ku soo hirato ku soo biirto cidii ka tagta hadda iyada dhibaysa anagu barwaaqadan dadka ugu yeereena laakiin ninna ku soo bari meeno midnimada beesha daaroodan ka shaqeynayna qulubtooda isu soo dumaya hadii la idoorto maxaan ku yiraahdaa horumarkoodan ka shaqeynaya insha Allah taala aniga daarood waa iisiman yahay reer ka jecelahayna ma jiro kuwan ka dhashayna Allah ka dhigay reer xigana male si cadaalad baan beesha daarood ugu shaqeynaya macaayo cid anaanan maayo cid walba waxa weeye wixii horumara oo ay la timaado oo magaca daarood ku soo kordhiso oo geedka harka weyn ay la timaado waa ku amaanaya cidii iyadu tiraahda geedka waa ka tageynaa oo dadka falqaladadiisa iyo kala daadsanaantiisa ka shaqeysana waxa weeye ehelnimadu waxa weeye farta lagu fiiqaya ka jooga baa la leeyahay ka jooga saasi dadka ehelka ah ma kala qabato anigu madaxweyne bilaa ciidan aan ahay dadka maxaan ku ilaahdayay waxaan isku wadayaa micnaha waanaan isugu wadayaa insha Allah taala dadka waanaan isugu soo dumayaa wanaag baan ugu yeerayaa kaasa dadka walaaleeya walaalo wuxuu ku dhaamo rag male daaroodna inta daqiiqad baa ku harta shiro bes way waxa noo balana daarood siman oo wada walaala ah oo hal saxan wax ku wada cuna kaasaan ka shaqeynaya daaroodna weligii kaasuu ahaa cid aan ka yeelayo supremacy ma jirto cidii doonaysa supremacy oo Donald Trump raamka Mareykanka isu qaadatay oo aaminsan cid kale oo daarooda inay wax dheer tahay insha Allah taala xaaladaha jeexjeexaya runta sacbada loo saaraya waxa weeye dadka jifida daarood maxaan ku yiraahdaa jifi ka haybad badani ma jirto dadku dad wada dhashay weeye dhuux hal god ka wada yimi diir wada dhashaan nahay marka cidii iyadu supremacy doonaysa iyada cidla ku soo dhici doonta insha Allah taala marka anigu midnimo ka shaqeynaya dadkan isu soo dumaya daqiiqadii ugu dambeysay waxaan uga faa'iideysanayaa waxaan ka codsanayaa dadka daarooda ay daawanaya walaalayaal codka isiya igu khasaari meesaan jagada amaanta ii doorataan wax igu wallaahaya wanaag baan idinku adeegayaa haddaan ku shaqayn waayana dib baan idinku soo celinayaa daaroodna cadaalad baan ku dhaqayaa waa isugu yeerayaa daarood mideeyaa noqonayaa kala irdheeye ma noqonayo ii codeeya codkiina marti baan u ahay magaca daarood oo muunadu leeyahay ogtihiin sharaf ii tahay maanta inaan madaxweynihiisa u soo fatamo madaxweynaha baraha bulshada TikTok kaliya ma waa baraha bulshada oo dhan oday meel kasta taagan waa ka dhacday muxsin waa busy baan u maleynayaa muxsin saacada ku sida insha Allah 12 daqiiqo maadaama uu kale 12 daqiiqo qaatay cadaalad baan ka rabnaa aadiyad ويا بقر صادق ما شفتها aad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaan iyo marweyn soo dhawaada waxaa si gaara u soo dhaweynayaa marti sharafta kasoo qayb gashay xalfadan caawa waxaa u jeedaa madaxweyneyaal ka socdaan Hirshabeelle madaxweyneyaal ka socdaan Galmudug aad iyo aad ayaan soo dhaweynayaa sida u jeediin ba caawa waxaa joognaa waa golihii ugu dambeeyay waa meeshii doorashada ka dhaceysay caawa waxaa u tartamaya madaxweyne daarood waxqabadkayga kolay Soomaali hore u maamaado waxaa la dhahay ninka af Soomaali badan dhaxal aabaa kula qaybsadaa laakiin ma u maleynayo meeshan af Soomaali in wax lagu kala qaadanayo af Soomaali ma ahan waxqabad weey waxqabadkayga haddii aan laba iyo hal ka dhaho aniga muhiimadeedu koowaad waxay tahay
waa in gabdhaha daarood Ismaaciil ay ka noqdaan barahan bulshada number 1 dowladdan haddii aniga madaxweyne aan u noqdo waxaan ii ballan qaadayaa in ay talada koowaad ay lahaanayaan gabdhaha waa in gabdhaha kor loo soo qaadaa teeda kale tole muxuu ahaay tole experience marka laga hadlo aniga ahaan experience waxaan u leeyahay qof maanta ooga sheekeenaya mise maanta qof aan fahansiinaya malahan sababtoo ah waxaan waa dhaxal soo jireen awogeyba ah madaxweyne adeerkeyba ahaa maantana dee experiencegiis aniga iga dhex muuqataa dhiiga biyo maahan way ugu jiraa waxaana aaminsanahay daarood inaan soo midayn karo daarood inaan mid ka dhigi karo waxaan u jeedaa burcad badan oo soo baxday ee gabdhaha ka ganacsanayaan ee gadayaan sharciga koowaad oo qaban doona burcadtaas ina gacmo muxuu ahayd adag aan ku qabta ay noqon doontaa si toos ah muxuu ahayd shiina kulli waa iga af Soomaali badan yahay balse adinka waa itaqaaniin waxa aniga aan tari karo iyo waxa aan sameyn karo information experience knowledge and skills baa loo baahan yahay intana waan u haystaa madaxweynenimo haddii ay noqoto marka maanta waxaan kugu fadhiyaa oo marti in kugu ahay waa codkiina haddaa ay garab istaagtiin oo maanta ay dooratiin waxaan hubaa inaad doorateen nin ku mudan munaasibna ku ah qofka koowaad ay ku mudnaan lahaa madaxweyne in loo doorto daarood Ismaaciil inaa ahay ayaan aaminsanahay haddii ay dooratiin adinkana magaciina iyo sharaftiina iyo milkiina wuxuu gaarayaa meel saro mana jiri doonto cid lagu asiriyen doono qabiil ama jifo lagu asiriyen doono ma ay jiri doonto wax walba waxay noqon doonaan si fair laakiin kaalinta koowaad waxaan gelin doonaa gabdhaha waa in kor loo soo qaadaa gabdhaha xifaaltanka dhinaca daarood gabdhaha aad ayuu u liitaa marka magaca gabdhaha daarood waa inaan kor u soo qaadaa madaxweynahan waxa waa madaxweyne u diriri doono dumarka Soomaaliyeed sharaftooda iyo qiimahooda korna geyn doono insha Allah khudbadda kuma dheeraan doono Soomaali hore u maamaado waxa la dhahay dharigii farabata oo fuud xaraareeya ina iska hadalno maanta horno iska hadalno wax macna ma soo kordhinayso ulajeedka waa fahmi kartiin waxa aan qaban karno waa ujeedin waxa in la hadlay waa Dr. Saadiq waa Dr. 1 million awoodda aan ku leeyahay iyo jagada aan ku leeyahay TikTokna waad ujeedin marka insha Allah waxaan rajeynayaa caawa guushan inay dhinaciga soo raacdo oo madaxweyne daarood Ismaaciil aan noqdo daaroodna aan ka dhigo number 1 muxuu ahaay dadka baraha bulshada lagu daydo marka insha Allah codkiina caawa martiin kaga ahay ina socday kulay meeshan maanta aan joogo kuma aanin imaanin muxuu ahaay tabriyo iyo tugma kuma aanin imaanin ee waxaan ku imaaday muxuu ahaay awoodeyda iyo xaniyeega ayaan ku imaaday iyo adinka oo iga soo garab istaagteen soo garabka soo istaagteen ayaa meeshan ku imaaday insha Allah waxaan rajeynayaa hore inaan noo sii wadaan hadafkeena waa guul insha Allah halkaasaan kaga baxay qubada soo dhow muxuu waayahay bismillaahir rahmaanir rahiim daaroodu arkaysa maqlaysa bay maraysaa labada wiil ee daarood Ismaaciil runtii aad baan u qiirooday waxaan ka dareemay daaroodnimo jacayl daaroodnimadii oo la helay ayadoo meeshay ku mudnay taagan sidaa darteed ninkii hore wuxuu yiri cadaalad ما سمعي دونا أنت نحن ما سمعي دونا واسكير على دونا وحياة بدن بوكالي نكنا مقفي على بدك عمود كيتش بينا يا أبوي دانوت كده حديقني واحد بدن بوكالي وحوك جرابي سيدو كلامته وعير مدام ونكني أفمالي هي ويجي أفتيس وقت بدن بيني كمل من دانوت بوير وقت مناسب جري وحان ربا شين علي إنه موت كصبحه وكوكل صون هذا aad tiraahdo aniga oo shiina hebel hadii uu walaalkay maanta codkan iiga guuleysto waan ku daba faylaya askartiisana ka mid noqon doona inaad tiraahdo ku arabna shiino oo aad ballan qaado inaan hadhow iman doonin inqilaab iyo wareer iyo isqabsi iyo muran shiino soo bax halka waxaan kaloo ka cadeynayaa beeshii talade iyo awrtable oo ayagu qabsaday waqti yirina inaanu taraashulnay oo boqorka uuna been sheegaynin madasha oo lagu kala tagin baanu iman doonaa oo ka caday doonaa ilmaada reer waxa noo xarnimnaanina hawshiina hore u sii watay soo fareen insha Allah dhagihiina ku maqli doontaan barnaamijka waa barnaamijkii koowaad ee caawa qabanay laba barnaamij oo kale aad xasaasi ah baad arki doontaan dhammaantiin wada soo follow gareynaysaa cidii rabto reerkan daarood Ismaaciil ee TikTok wareeriyay saa ayagu garaanta u wareejiya update kooda cidii danaynayso 2,000 bad ku saarantiin soo follow gareey shiino soo bax
ugaaskii culuw ay noo yimi insha Allah ina isagana kalmad fiisan muhiima intaan doorashadu inoo bilaaban dadkana waxaan ka codsanayaa 2100 aan ugu daawanaysaan share gareeya si dadku u soo bato foodka loo galo share gareeya 700 share gareysay bilaa calaykum hal mar gacanta share tasaara boqorkana hal mar hal follow hal dhaho aniga oo musharaxa jagada madaxweynaha baraha bulshada ee beesha daarood mudane shiine bin Ahmed bin Culay Beyd Warsangeli ala daarood waxaan halka ka cadeynayaa doorashada caawa halka ka dhacaysa oo mid heer caalami ah inaan ku kalsoonahay inay doorashada tani tahay mid daahfuran si wanaagsan looga soo shaqeeyay isla markaasna ku dhacaysa si xora oo xalaal natiijada halka ka soo baxda aniga oo musharaxiina waa ku kalsoonahay hadii aniga la doorto iyo hadii walaalkay musharax Saadiq la doortoba waxaan hubaa Saadiq inuu yahay nin beesha daarood horena u soo hogaami jiray taariikh leh hadda oo la joogana hogaamin kara waxaan hubaa inuu jagada hadii la doorto uu ka soo bixi karo kaliya waxaan isleeyahay waa ka dadaal badanaysa ma aha wax kale oo aan dheerahay ma jirto marka halka loo dhig kama dadaal badnid hadii la doorto waa u hambalyeynaya waana la shaqeynayaa waxaan ku irwaana garab istaagnaanayaa si buuxda hadii aan ku guuleystona insha Allah ta'ala waaba guuleysto hadal kama noola waa ka baxay waayahay bismillahir rahmaanir rahiim waa mar saddexaad boqorkii beesha daarood baa ku soo laabtay ahna boqorka mustaqbalka ee ummadda Soomaaliyeed insha Allah waxaanu ka rabnaa Saadiqow inaad intaad moodka inaad ka soo baxdo oo aad 2200 oo qof 2.2 ku daawanaysa inaad u sheegto hadii meesha lagaaga guuleysto oo aad ku soo bixi weyso tolka ku dooran waayaan inaad askari la shaqay doono walaalkiisa ka guuleystay ugana dambeyn doono si fiican oo hambaliyay doono inaad noqoto oo aan dhagax tuur iyo arqalad kaaga imanin tolka kuna qanacsanaanayso waxay daarood ku soo qaadaan dabcan dadka ugu badan ee codeynaya waa daarood iyo Soomaali oo idinku raacaysa codkarnimo iyo hadba ninka sida u hadlo sida aadiya celi doona aadiya 2 daqiiqo iyo barbaad leedahay ilaa 3 aadiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada mudanayaal iyo marwooyin waxa aad u salaamaya daarood Ismaaciil dadkii laga beerow dhiga biyo maahan insha Allah waxa kale aad u salaamaya marti sharafta qiimaha leh ee ka socota Galmudug iyo Hirshabeelle waxa la soo dhawaada si toosa halkan waxa ka cadeynaya caawa hadii meeshan laga guuleysto in aanan bilaabeynin wax dhagax tuura oo aan la shaqeyn doono walaalkii Shiine Culay Soomaali hore uma maado waxa la yiri ninkii doqonkiisa ka soo tagaa nin doqonkiisa wata ayaa dilo si toos waana la shaqeyn doonaa Shiine Culay si aad oo waliba hagar la'aan ayaa la shaqeyn doonaa balse insha Allah waxa rajeynayaa guusha dhinaciineed calow baan waxaan sii doonaa 5 daqiiqo asagu waa marti sharaf muxsin oo 1 daqiiqo ah iyo daarood bila boqoradii daarood aaladan shanfarood iyo calaacal ku qaadatay boqortooyada hadda mar raba inaan u tubaraaco boqorada waayahay wax badan baa ka dambeeyay laakiin wali boqorad bay noo tahay aniga qaasatan boqoradeedii weeyaan Salma Awood oo ku soo laaban doona calow siida 5 daqiiqo laandheer وما سنتهاي لاندير دمانتين سجود بني سلامية وحوي مشارحين تا مرتي شرفتك اسمه وحوي بقرطوية دا دمانتين وحوي كاشامة dadka meesha waxa way sida sharafta leh milgaha leh quruxda badan nagala soo qayb galay meesha madasha lagu dooranayo madaxweynaha beesha daarood baraha bulshada hadday Facebook noqoto hadday TikTok noqoto hadday YouTube noqoto meel kasta oo waxa weeye laga isticmaalo ama baraha bulshada ee Soomaalida soo isticmaasho oo daarood joogo madaxweyne u noqonayo caawo waxa si farxad leh ugu faraxsanahay inaan qayb ama marxaati ka noqdo
codka igu soo laalaabanaya waaye waxa ku faraxsanahay inaan markhaati ka noqdo waxa weeye madaxweynahayga oo aan u codayn doono hadda labadaa ninna khudbadoodii waa dhegaysanayay kii aniga ii fiican waxa weeye wax ii qabanaya oo aan ku qanacsanahay haddee waa si dadban baa loo codaynaya laakiin waa la arki doonaaye waxa weeye badiyaabo waa bahdeen hadduu saadiq soo baxo waxa weeye anigu shakhsi baan ahay inaan ku dabafaylo madaxweynahayga uu yahay hadduu shiina soo baxo sidaasi lamida inaan ku dabafaylo hadda waxa weeye waqti badan ma doonayo inaan ka lumiyo kule hambalyada baa sugaynaa labada musharax kii soo baxa insha Allah waana ku soo celiyay laandheera dhalay haddana muxsin islaamka guud ee beesha daarood waa islaam buu ku dhammaada islaamka guud ee beesha daarood islaam muxsin oo sababa jira awgood aan 30 second sii daynaya ama 1 minute sidaa muxsinow warboqor waa mahadsan tahay horta sabab caafimaad darteed hal daqiiqad ka badan ma hadli karo waa sukriyow horta madasha aan joogno huyigii daraawishta weeye halgamayaashii guri xalaala daaradoo dhan baa meesha fadhiya waasidii iyo boqoradii iyo suldaamadii iyo garaadadii marka waa doorasho loo dhan yahay weeye daaradoo idinku ninka taageersantii labada nin codkiina lacag leedi kama rabo waxa soo dirinina oohin iyo qosol mid taabto idinku madaxweynaha ruuxiga oo daaradoo dhan caawa meesha ku dooranayaan kii ruuxiga ahaa oo loo siman yahay marka idinku noo taabta madashaas noo sheegaray wax kale dhaqaale dhan laga rabo daaradu labada nin kii aftaansan kii asleediin hore buu idin wadaya kii labada hore idin ka xayn karo idin wadi kara doorta wabillahi tawfiiq marka baxay waayahay cismaan carab ugaaska guud ee tanada daarood oo raba inuu codkiisa maqashiyo daarood weyne 1 minute haddaa siiso daarood bilaay inaadeer goshay waxa weeye si cismaan carab ama lalansay ka fiire lalansay wuxuu soo diray cismaan carab sababtoo asagay ciise daarood soo wada hadleen halkaasuuna ka cadday doonaa anigu naftirkeyga nimankan waa soo waceen laakiin waxaan rabaa oo muhiim ah inay afkooda ku qirtaan hadday tanaasulaadkii ay sameeyeen ay ku taagan yihiin iyo hadday ka soo laabteenba عثمان عرب مقع كلا أقرب ما لقى يابا دقدي waa wacaya daqad أنا بعد وعيب التلفون يقول لك بالشاوي بس صار نقدي